صدق المانتا وكان بعد مانتا كجبنا محور هاي أنا حسن محمود حولي ورا الدنيا حسب الجوبيكي مانتا هالك وحمود لنا مدة الصومالية في عالم كإنتباه الدرسينه بعدين الشركة على المقعد المدرسو بدأ كوبات كحنا هاي سلي حبعين بدأ لبعض وعمبارين هنا على مدة الصومالية لنا عضينه بعدين ناس الدولة نمو راتكم لها مدحوني الشيخ شريف مدحوني الجمهورية حلي ملقا كاي كسار البلكان نين وضيع هو محمد حشمت بدن dadka iyo جمهورية dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaas saas loo dhaqmaahay si meel ay sax ku tahay ma jirin qaanuuniyan sax ma aha dadnimana sax kuma aha iyo maxaa ku dawladnimo intaba sax kuma aha shalay ficilka airportka muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dawladnimana ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka 22aad ee dastuurka ku meel gaarka faqradiisa koobaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaamo iska daa qof mas'uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar u soo geliyay oo madaxdeeda karaamo ku oo mudan in si guula loo weynay waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidanahay ficilka noocaas dawladnimadaan jecelnahay qaanuunkaan jecelnahay dastuurka ixtiraam badan iyo weyneyn badan ku haynaa dalkan iyo meesha uu joogo inuu hore u socdo u dhaqaaqaan rabnaa laakiin wixii aanay dawladnimo keenaynin ka daymayno naf una maxaan ku idhahdaa waxay una muxuu ahay jilcimayna ama ka aamusimayna cod dheeraan ku leenahay waxaas khaladay ahayn waana khalad shalana khaladay ahayn maantana waa khalad beri hadday sii socdaanna waa khalad cawaaqib xumo badan ay ka dhalan karto suurtagalta duulimaadyada hawada iyo hawada Soomaaliya waa garanaysaan 1995 UNISOM markay dalka ka tagtay ayaa hawada Soomaaliya la laalay maamulkeeda loo dhiibay hay'ad soddon sano ku dhawaad ayaa hadda hay'adaas gacanta ku haysa lacagta hawada laga qaado hay'adaas qaado dadka Soomaalida wax weyn loogu maqalay jiray uma madax banaaneen waxaan dadaal adag loo soo galay hawada si loo soo celin lahay oo maamulka Soomaaliya loo soo celin lahay wada xaajoodi badan laga galay dawlad goboleedyada raali ka aha maxaan ku idhahdaa qaybaha kala duwan ee mujtamaca bulshada oo dhan raali ka ahayd in ay noo soo noqoto hawadeeda maamulkeeda taladeeda markii ugu horreysay soo noqotay in waxaas dhacaan waxay dib u keenayaan haddana un hawada fareen ay ka baxdo ay dib u noqoto haddana macquul ma aha dadka la diiday inay doofaan iyo kuwa maamuladooda iyo shacabkoodii iyo humanitariankoodii muxuu ahay gargaarkii loo fidinaya dadka la hortaagan yahay diyaaruhu ma dhaqaaqan kara hawadu waa xirantaada leeyahay waa kuwii shalay cod dheer cod gaaban ku yiri maxaan ku idhahdaa hawadeenna anagaa iska leh naloo soo celiyo oo dawladdii maxaan ku idhahdaa dawladda Soomaaliya ku garab istaagtay dawladnimadu shalay ma aha maanta ma aha waa kasii horreysay shalay maantana way ka dambeynaysaa dad badana usoo istaagay in waqti dheer iyo waddo dheerna waa qaaday inta jeer oo loo safray Canada loo tegay xarunta ECAO loo tegay madaxda ECAO warqaday dacwo iyo wax walba loo qoray si hawadan waddo dheer ay soo martay maanta markaa in ay dhaqanka noocaas oo hub siyaasadeed loo isticmaalayo oo kii iga fikir duwan waa ku cadaadinaya in la yiraahdo wax macquul ah oo maxaan ku ummadda Soomaaliyeed ay u qalmaan ma aha waana basic rights ama xuquuqda asaasiga ah sheegayna oo muwaadinka iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ay waxay ku tahay ku xadgudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay dhinac kala qaado oo ay fahamto weli waxaan rabnaa dawladdeenu inay fahamto dalkan meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dawladnimo dhammaystiran maxaan ku idhahdaa xuquuqdeena qarannimo oo aan adduunyada ku lahayn dib noogu soo noqoto aqoonsi iyo ogolaanshiyo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda aan ka wada helno laguma daawoobayo Soomaalida waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukatay laguma daawoobayo dhaqanka noocaana shalay dalkeena ku burburay dawladnimadeena ku burburtay maanta daawo inaan ka jirno oo dawladda maxaa ku xoogaysanaysa dawladda ku muuqanaysa daama dawlad intaan ku xoog badan shalay waxaan wax lamid inta la timid dadku diiday war maanta waa soo kabanayna waa soo noqonayna wixii shalay dhaqankii xumaay shalay la dilay cudurkii shalay lagu dhacay maanta inaan haddana cudurkii aan doondoonanahay macno badan ma samaynayso
arrinta waxaa soo hartay maamul goboleedyada dalkan nidaam federaal qaatay 2004 shirki ugu dambeeyo dibadda lagu qabto inbagaasa lagu qabtay ayaa dadka Soomaalida isla soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato 2012 kongareeska xamar lagu qabtay ee dastuurka hadda jira ee kumeelgaarka lagu ansixiyay dadka ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadda oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed isaga timiday waxay isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho nidaamka federaalka wuxuu ka mid yahay qaababka xukuumadda dalka ka jira adduunyada ka jira ay quraana maaha waa la bedeli karaa waa laga guuri karaa laakiin sidii shalay uu ku yimid oo dadku ay ku doorteen aan lagu guuri karaa dadka Soomaaliyeed inay isu tagaan yiraahdaan federaalku waa anfici waaye ee mar laakiin aniga jecel iyo aniga neceb iyo anoo ila quma yahay ana awoodeydu kordhinay anoo dad u dhima ma galo deedel ma galo waa rabitaanka dadku ku yimiday waxa looga noqon karaa waa laga noqon karaa laakiin waxa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta la isu yimaado Soomaaliya isu yimaado federaalku waana anfici waa laakiin qof iyo xukuumad midna ma celi karaan federaalka mana diidi karaan mana hor istaagi karaan rabitaanka shacbiga waayo oo ku salaysan yahay nidaamkaas dib badan loo soo maray dhismihiisa wixii laga soo maray saxaafaddu aad iyo aad u ogtahay goobjoogi u ahay dowlad goboleed kasta dadka Soomaaliyeed oo isu keenay oo walaalo maxaa dhihi maxay kula tahay adiga war ka balan war la yiri oo loo fududeeyo ayagu ay go'aansadeen nidaamka ku dhisan process socdo waaye ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqolkiiba boqol saxiix Soomaaliya maanta boqolkiiba boqol wax sax ma jiraan laakiin wada dheer oo eber aan ka nimid meel fiican hadda maray aad iyo aad wax badan loogu qabsoomay nidaamka federalismka dhexdiisa dhibaato ka jirto wax badan oo dastuurka xaqiisa ka qabiya ah jira wax badan oo maxaan ku dadka Soomaaliyeed in ka doodaan iska wadaan loo baahan yahay laakiin maaha dheeralawga iyo dayalkan laguma bedeli karo lagumana xaqaadayn karo dhibaato iyo waxaan dowladnimadii tii qaranka una su'aal gelaysay dadka deegaanada degana tashaday war hadday wax ka qaldan yihiin war waxaana ay ka qaldanay sidaan si maahan hal la toosiyo in la yiraahdo oo la dhaxgalo oo waxay u baahan yihiin waa garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan kara iswarsan karna dadku inta isu yimaadeen iswarsadeen ay nidaamkaas sameysteen waxbaa ka dhiman hadday wax ka dhiman yihiin in la dhameystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dowladuna ay fududayso dadka inay macnaha afkooda isu carfiso isu keentay walaalaysaa laga shaqeeyaa laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihii bariyay dhaweyta dhacayo dhan si sax ah oo maxaan ku yiraahdaa dowladnimadeena saacidaysa maaha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dowladnimada uu ku gaari karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliska loo hadda ka shaqeynayo iyo midka raas kambooni ka shaqeynayo midka raas caseer ka shaqeynayo halkan xamara laga bedelaya dowladda dhaxa bedelayso gabadha umulisada ay maxaan ku yiraahdaa baar dheer hooyada joogto umulinaysa ama maxaan ku yiraahdaa qandara muxuu ahay qoyska jooga umulinaysa ama Iiraan umulin halkan laga bedelaya sheekadaas taariikhdaas waa bog soo laabmay bogi soo laabmay wuxuu ku qornaa inaan akhrino macna ma sameynaysa bog horyaal waxa ku qoran inaan akhrino waxna ku qoranna maanta waayo waxa loo taagaya marka si kasta nidaamka federaalka lagu guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa laakiin marna ma dhacayso dowladnimada aan naqin shaqo aan hibanayno waa midaan sheegay calaamad waxay ku boqoto laguma daaway dib looguma noqon karo yaan marka lagu kadsoon arrimahaas aan leeyahay حصوها المركز ضد الصوماليين أنا ربع إن اللودة وإنتاس أو سقط توصل أو دستور خبيء عليه أو محامي إلى هذا الشروع البنك كذيله أو وحيد واحد يسيه ضد هرب نقاجين لكن لا وروح خد ضرب وحي هرب إن بجبسان هكون مشغولين إنه وحن كوي يلا بيصدق يأفر الشمع لمن هل يلا ما كانوا كدري كرتين فضل خد ضرب أنا اللي كل ضرب ورمحان كرا دين عسى وضد نجتر الآن ضد لو كان لا يعني وإلهي مانت شرع شكل تمنع على قرني وعلى قرني يا برلمان كفدرال كدون كسر بدر وحي كدعي بين أبوه كدعي قلبي وحد كسر اسماعيل وحي كدعي ما أنا برضو مقالا شيء ضد يكون العاصمة جيبوت دسلا يقطع ضد إني نولا لا يجي دولقات كذبك الشقية دولة المجتمع دولقات هي دولة جعيل أي قبان ضد المجتمع توقف عن لا ضدك يعني لقد دبت جينه هرنا وأقول عنه مركز وكعلنينا ضدك مرجع لقد دايم إن النورادان نقاقان
oo ay dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo markii waxaas ay waayeen shalay wixii dhacaa la garanaya maanta wixii shalay dhacay dadkii ogaayo xanuunsanaya qowraya weli oo la warmaya war meeshii shalay uma noqon karo war wixii shalay ma anfacaan laakiin wax walba xuduud ay leeyihiin hoggaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka in aanay ku geynin meeshii ay tahay nidaamkan federalismka iyo dalka inay tashadaan wuxuu u yahay isbuunyo u dhaxaysa oo inay isku dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwan yihiin dowladnimada federalismku waa isbuunyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kala ilaaliso oo qolo walba gooni ugu yaraan intii jirka dhan oo wada xanuunsanahay qayb ka mid ah haddii jirka xanuunsan tahay inteeda kale inaan u gurmano kismaayaa dhibaato ka jirtaa maahano war aan aadno annagoon dowladda ahayn maanta aanan hoggaanka ahayn dadaan u dirnay odayaalaan u dirnay niman siyaasiyiinaan u dirnay waxa ka socda meesha inay dhex galaan wax badanna waa ka qabteen laakiin doorkii dowladda ka maqan dowladdu iskuma dayin haddii kismaayo wax ka qaldan yihiin in wax la saxo laakiin dowladdu mar walba dabkay muxuu shidaal kusii shubaysa dabkay shidaal kusii shubaysa nool intii hore kasii dheeraado oo kasii waxayso ilaa iyo wixii shal dhacay ay muxuu ahaaye ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waaye arrimaha mugaan leenahay marka maanta dowladdeena maxaa lagu aamini karaa waxaan dadka soomaaliyeed aniga aragtida aan qaba la wadaaga waxay tahay waxaa dowladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummaddan in lagu aamino maalin walba xuduudda ay lagu aaminaada kalsoonida ay dowladdu qabto maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay dowladnimada iyo sharciyada dowladnimadana waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dowladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la eg tahay sharciyadda iyo dowladnimada muxuu ahaaye dadka soomaaliyeed dowladdeenu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taasi inay maalin walba dib usoo dhacayso soo yaraanayso oy soo waxaysanayso dhaqanada aan macnaha ahayn oo dadka in laga dhex shaqeeyo aflagaaxiyadda cayda maxaan ku ihahdaye waxa ay dowladdu ay ku bixiso maxaa qarashaadka iyo waxa ay maanta shacabka soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxdu aanay dhaqdhaqaaqi karin maa muhiim in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dalka difaacaya ku dhintay shalay iyo daraad ee qaarkood meydkooda weli banaanka yaalla ayay tahay dadka in lagu mobilize gareeyo kuwii dhaawacayna aan daaweyn kuwaasna aan reerahoodii iyo ayaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiim ah dowladdu maxay uga shaqeynaa waxaas maxay u arki lahaday u aadi lahaday muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebelna ma bixi karo hebelna ma hadli karo hebelna ma yeeli karo intay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqdhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinaya marna aan waxaan annagu laxa jeclo badan dowladnimada naga hayso khataraan u qaadanay riski badanaan ku marnay wax badan aan muxuu ahay culays ahaan soo aqbalnay maanta dastuurka aan maalin walba ku celinayn dastuurka aan maalin walba ku celinayn waa qabi waa run inuu qabi yahay laakiin adeer uga caliya shalay asigaan ku kala baxay asaan ku meel marnay si aan ciladii ceeb u imaaninaan annagoo joogno dowladdii aan qabkeena iyo wixiina aankeena aan gaabino si aan u qancino dadka kale inay dowladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doorto madaxweynaha la isugu imaanaya nidaamka meelay ka dugsanay malayn baarlamaanka dhexdiisa la isku dooran kara baarlamaanka hala joogo waa dhihi kara dadka qulubtooda iyo waxaad ilaalinayna iyo muxuu ahaa ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weynaa hala sii kordhiyay muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jeclay cid lagu qabsan kartay iyo cid loo diidi kartay ma jiro dhaqanka dowladnimada suubad in la ilaaliyo teeran hadduu jirtaan kara dowladdaani ee fafaalaha ka muuqdaay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaan ixtiraam u haynin teerankan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeranka hadduu dhammaado uu dhammaado waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyo wakti badan isaga dhumina soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ku shaqayn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda meel iska soo dhigay kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaafiicda riday ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaafiicda riday ayaa maanta waxay leeyihin war hayadahaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka hala ilaalino midaan shalay waxay dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmi maayo anigaa muxuu ahay waxay leeyihin macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ay
ay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana la dhowraya shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan qaanuunka hadday dhowri waayaan dhowr muxuu ma helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinaya dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacbigu ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan waddadaas inay bedelaan waddada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimaan ku leenaha waa soo joogna dalkan soddonkii sano dowlad la-aanta ayaan soo joogna wixii dhacayo dhan shalay siday noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli ka jooga hadda adigu ka maqleedeen dalka odan jooginina war annagaa soo joogna waddadii lagu dhumay waa waddadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya maragga iyo cunaqabataynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku dhahda xorriyadda dadkaana waa dul qaateen waxa ay maanta ku dul qaateen wax badan oo kamid a looma dul qaadanin shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo qabo laakiin dee wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixi rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weyn yaanay noo imaanin dowladnimadan taageersan ah dadku inuu dowladda yeeshaan rabnaa deganaanshiyahaan rabnaa dal kale ma qabno baasaboorro kale ma qabno daaro kale adduunyada kuma lihin meeshaan aan ku qarano ku qorno wax ku barano ka soo shaqeyno weliba inaan joogno ka shaqeyna rabnaa laxa jeclaan naga hayso meelan anigu dalkaan hadduu xumaado meel kaloo aadama aqaano u bedesho mar ninkaan meel kaloo aadalahow dalkaan lagu xayaani malaayiinta soomaalida dalkaan joogtana meel kale ma qabaan adeer haddaad meel kala qabta adiga ku jirtahay laakiin dalkaan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaari karaam xumo iyo sharaf xumo taariikh xumo ayaan kaa raacay oo weligeed aan kaa hari doonin aad iyo aad ayaan mar kale waxaan uga xunnahay wixii shalay dhacay madaxweyne sheekh shariif waxaa lagu sameeyey astaan iyo farriinay dadka soomaaliyed oo dhan u tahay qof kastoo soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkaani asiga oo 22 sano marna dowlad la-aan ahay marna dowlad ku meel gaar ah ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyay dowladnimadii xamar iyo iskool bulsiyo ku koobneeday inta baahiyey jamhuuriyadda afarteeda gees geeyey haddii aanay dowladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yaryada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku idhahdaa ee mooska ku gadanayo maxay sugayaan waa rajaxumaad wadaan rajaxumada joojiya waddada aad ku joogtaan wadda saxa ma aha ilaaliya dadka hana wato aad iyo aad umahadsantihiin dadka soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen xuquuqdooda ha ilaashadeen lama aamusi karo lamana caburi karo dadka xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgelyo ku jirto ha u ilaashadeen laakiin yaana yeelin in muxuu ahay la abuse gareeyo oo maxaan ku dhaha dastuur qaynuun la-aan in lagu dhaqo qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaana la yeelin marna yaana la yeelin laakiin haddana nabad waxa aan rabnahay nabad ummadaha adduunku waa aragteen cod iyo nabaday u doontaan madaafiic ma ridaan ma isma dilaan qarax iyo balaayo iyo muxuu ahay dhib kuwan argagixisada ama nabadiidka ah noogu filan colaad kale iyo dagaal kale ma geli karno laakiin codkeennoo midaysanaan ku hor istaagaynaa wixiina dhibaayo codaan ku hor istaagaynaa faran ku hor istaagaynaa waddadaan soo istaagaynaa mayaan leenahay mayaan ninkii yidhaahda ma ahan u dambi kale marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed nabadda soomaaliyeed nabadaan mar walba ku celcelinayaa waxaan ku celcelinayaa soomaaliyeed xaqa aad leedahay in ilaasho ha ogolaanin in lagu tacadiyo oo xuquuqdaada sharcigaasi qaanuunkaas wuxuu xaqa uu ku siinaya ilaasho oo midii maxaan ku ihahdaa diinta islaamka ay kusiisa ilaasho walaqad karamnaa bani aadama ilaahay yaa qur-aankiisa karaamka qawaaniinta oo wadciga in leenahay dastuurkeedu ugu wen yahayna xorriyadda ilaalinta qofka iyo xuquuqdiisa aadanaha iyo xuquuqdiisa muwaadinimo way caddahay adigaa lagaa raba inaa ilaashataan dadka soomaaliya aad iyo aada umahadsantihiin wasalaamu calaykum madaxweyne kismaayo awgeed ayaa loo xirxiray in diyaaraduhu ay baxaan adiga ma ku jirtaa madaxda aadaysa kismaayo maanta ma taagno kismaayaa loo xiray wax ka weynaa maanta taagno kismaayo maa qadiyad maanta qadiyad qaran waaye
dalka Soomaaliya oo dhan iyo dawladdiisa jiritaankeeda waa su'aasha taagan issue Kismaayo ma aha marka yaa lagu mashquulin Kismaayo iyo qadaha inta ka dhacay kan iyo qarankii Soomaaliyeed maanta taagan shirka jaraa'idda noogu sheegtay madaxweynaha وقال كاسر هو عمل مني وعلى الصومالي مدن حسن الشيخ محمود